kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socoto mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada Cape Town Soomaalida ku nool waxay ahaayeen kuwa si aad ah ugu dabaaldegayay haddaba TV-ga caalamiga ah Somali Cable mar uu mikrofoonka la dhax qaaday shacabkaasi waxa ay aragtidooda ku cabirayeen siday u taageersan yihiin madaxweynaha imika ku guuleystay waxaan ka filanayaa inuu dalkeena si degdeg ah noogu nabaday annagana aan dib ugu laaban annagoo waliba faraxsan oo taageersan cabdullaahi farmaajo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya shacabka Soomaaliya guul baan ayaan u rajaynayaa maanta magacayga waa Asad Maxamed Nuxudiin I'm supposed to farmaajo I want to go back my country after 3 days insha Allah taala والله aad iyo aad ugu faraxsanahay ninka shacabka ee daniinayeen Ilaahay uu guuliyay marka waxaan leeyahay dadka si ku jecel yihiin ha ku sii jeclaadaan ku nicin dadka waxaan leeyahay halasan u sheegay aniga waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliya waxa baabiyo waa musuq inuu ka bilaabo inuu la dirro markuu horeysa musuqa tusaalahan dalka Filibiin waxa baabiyo daraaqis madaxweynahaas markii la doortay wuxuu la dirray qofkii lagu qabto daraaqis uu dilay waxaan ka codsanayaa Soomaaliya qofkii musuq lagu qabto in tiirka la geeyo sida xaq jirka oo kale intood waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee Farmaajo waxaan u rajaynayaa insha Allah taala inuu wadanka wax badan ka bedelo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay guuleysto waa nin wadani ah waa nin Soomaaliyeed waana guuleystay hambalyo waxaa tahay madaxweynihii aan sugaynay waxaa tahay madaxweynihii badbaadi lahaa ummadda Soomaaliyeed muddan ku sugaynay muddo kooban maahan tan iyo muddada ra'iisul wasaaraha soo noqotay ilaa haatan waan ku sugaynay waxaan ka codsanaynaa mideenta ummadda Soomaaliyeed raas Kambooni ilaa raas Caseer waxaan ka codsanaynaa mudane Farmaajo inuu isbedel muuqdo ummadda u keeno gaar ahaan ummadda gudaha wadanka ku sugan waxa kale ugu baaqayaa inuu ugu baaqo inay ku soo laabtaan dalka gudihiisa ummadda dibadaha ku nool waxaan leeyahay maxamed waxa tahay faraj Soomaali loo soo diray maxamed waxaan leeyahay meeshaada ka wad waana salaamantaa maxamed madaxweynaha Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool dalka Koonfur Afrika oo maalin kasta ay la soo diristo dhibaatada baasan sida dilka iyo dhaca oo kale inuu wax ka baqabto waxaan ka codsahaa madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo in oo mataqaanaa wax isbedelan ku naqaanaha isbedelka dhabta oo la yimaado oo ummadda Soomaaliyeed mideeyo wadaniga daacadda ha guuleystaan leeyahay maanta waxaan halkan ka salaamayaa aabba farmaajo waa aabaheena dalka Soomaaliyeed waxaana dabcan aqoonsanaan doona inaan Soomaali dib ugu sii laaban doono aniga oo Cabdirasaaq aan wili naqad doona safka hore ciidanka madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay mudane guuleyso noqo midkii dalka iyo diinta iyo dadka anfaco ciidamada taakuleeyo shisheeyana la dagaalamo waxaan ugu diranayaa halkaba iyo dixi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سومالي ويس العين ويس حريراني صدقي وحان لقطو مع صوت أفريقيا سداد هاي وحان لا يا سومالي سلعين فرماجة ونقو كي كبدحي أو سسي نقد فيه نقد جوجي قاد كي شيشايا فكرتهم بان نقول جرتي مدحدوده جيفيه كبر إيه قال كي دقريق أم حراد الله ترر وادكتوري adigoon waxaan ku talinayaa kula digtoonayaa xildhibaanada dhisoo ka dila musuqmaasuq iyo laaluushka askartana soo dhisay dila dambiyada kuwa geysanayaan silac iyo xumaantayna barayaan qoorta seefan baa naga saaran qoortaay silac ay shabaabka inoo geysanayaan midka diiriya atee soo noqo adigoo nabad qabo mid kale waxaan leeyahay Soomaalida meel walba ay joogaan dunida dacalada iyo taafeeda isku soo laabta noqda kuwii midooba mid iyo walaala hal far iyo hal gacan waxaan qulubteena ku jirto inta lagu laayay shan lama sheegin hal habeen la dilo aan ugu faraxsanahay farxad aan la soo koobi karin madaxweynaha cusub waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaw jir oo joog dalkaaga welcome dalka wadankeena waan ku noqon doonaa nabadaan rajaynaynaa farxadaana muujinaynaa محمد أحمد سياد Somali Cable TV Cape Town Koonfur Afrika